السلام عليكم يا أصحابتي قالي بدن وولاشين سمية ومر لبعض نيسو لابطي isku soo noqod wanaagsan ma asxaabteyda qaaliga badan inta xanuunsan ilaahay xanuunka ka dulqaad inta caafimaad qabtana Allah u ziyaadiyo ma sha Allah ma asxaabteyda qaaliga badan waxaan filay in caafimaad qabtiin oo walaashiina umar labaad niisoo laabatay oo qeyrka nila jecel in nila wadaagto saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam nila jecel in nila wadaagto ducooyinka qaaliga badan nila jecel in nila wadaagto wixii dhir ah caafimaad xaga caafimaadka okay u ah nila jecel in nila wadaagto murqsaarka ama toobinta ma asxaabteyda qaaliga badan intaas in ka badan ilaahay xaqiisa ayaan ka rajeynaynaa insha Allah inaan ila wadaago ma asxaabteyda qaaliga badan maanta maxay nii wadaa walaashiina waxyaalo badan oo qeyr ku jiro oo ilaahay jeclaaday oo labada qof sameeyeen ilaahay macnaa cafiska uu badinaayo ma sha Allah ma asxaabteyda qaaliga badan inta horta barnaamijka aan hore u galin aan ku wada salino saliga nabigeena Maxamed ibn Abdullah ibn Abd Mudallib ibn Hashim وهاشم وقريش من العرب وعرب من ذرية الإسماعيل صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي قالي بدن وإنا سلق النبي قاد وبدنا سلق النبي والو أرواحا سلق النبي والو دجا سلق النبي والو نزها فرج كإلهي دتك وغفر ما شاء الله ما يا أصحابتي قالي بدن هدي أودت كسل سلق النبي جين مالين تكون أما الله بكون أما صدح كون أما أفر كون أنت أودت ما يا أصحابتي قالي بدن مهمة وإنا سلق النبي قافك كويسد بكوس حياله بدن أيالو جهرا ما يا أصحابتي قالي بدن أنت اسكسكو كان كسو وضع بحنا سلق النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت محيني ودا ولاشينا محيني لجعلاتين اللي وداكت ولاشينا سمية وأكتهين ما أنت معناها اللي ودا وحيت هاي وأكتهين بشي بركيسنات بشي عفيس كبنات بشي صدقة بنات بشي قرآن أقرس كبنات ونبي صلى الله عليه وسلم أنت سمينا صلى الله عليه وسلم إن معناها نقصو فتهي سأما ينوسو دو هاي إلهي أبو ديسها نقصيو إلهي أبو ديسها نقو قارسية عافمات عمر دير عبادة صوبا إلهي هنقدر يقوب الصومي وصوم كوض الأقبلي ومعناها خير أجر حسنات إلهي كسي إلهي هنقوض ريقو كل جن ماي أصحابتي قالي قبل إنه نسكوذ دعينا معناها ووحاد وناكسنا أما وحاد ومهم وآه ماي أصحابتي قالي قبل بشام حاو قلت شيء بشام حاو دياركو بشام بركيسن وإلهي نسيه ومرتضى نوعه هالكابل وإلهي نسيه كوي توم بلود أيا وح عنيسي وح آميسي هدي عنتو وح تريس أما علول معناها أهوال لذاي مركا كوي توم كاس بلود أو وح عنيسي بشا هالكابل وإلهي كسي وعافمات وأجر حسنات ومعناه وح مهم وأنا كنفس الدينا ما حاجة عافمات كينا بكوس عنتو زائد كالله عنايا أما بلوين كالله عنايا يعني waxaa aaminsanaa caafimaad xagga macnaha jirkeen weeyeen halka bil ilaahay nasiyay alxamdulillah ayaan leenahay waa bil barakeysan waa bishi sadaqada ee nabiga sallallahu alayhi wasallam bixin jiri waa bishi cafiska badneed oo dadka in la iscafiyo ama in la saamaxa macnaha uu ilaahay korkeen waajib ka dhigay ma asxaabteeda qaaliga badan marka halka bil maxaa macnaha adiga ku diyaar ah ama maxaa diyaarsatay inaad samaysid ama maxaa maankaada gelisay inaad macnaha ku dhaqaaqdid aniga ahaanteyda waxay tahay waxaan macnaha niyadeeda gishta haduu ilaahay ii ogolaado ilaahay xaqiisa ayaan ka rajeynayaa inuu ilaahay noo ogolaado maxaa la dhihi jiray in aan bisha barakeysan aan si qeyr leh aan ku soomo insha Allah biidinlaahi kariin hada caafimaad ilaahay isiiyo iyo cumri aan ku soomo ilaahay haduu isiiyo in bisha barakeysan maxaa la dhihi jiray sadaqa waxa awooda aan baxsado inakan xaqiina waxaan ka rajeynayaa in sadaqada aad baxsataan in bisha barakeysan in aan cafiyo walaalkay ama walaashay inakan waxaan rajeynayaa in walaalkiin ama walaashiin cafisiin bisha barakeysan ilaahay xaqiis waxaan ka rajeynayaa in qofkii walaalkay xumeeyay ama ii caayay ama ii dulmi in aan cafiyo inakan xaqiin waxaan ka rajeynayaa in qofka walaalka ama ku caayay ama ku xumeeyay in aad dulmisay macnaha aad ama dulmisay oo ama asiga ku dulmiyay in macnaha cafisid ama asiga uu ku cafiyo ayaa ilaahay xaqiis ka rajeynayaa ani ahaanteeda intii macnaha xumeysay ama dulmisay cafi iyo masaamax ayay iga yihiin walaalahay ama walaashay ama walaalkay cafi masaamax inakan xaqiin waxaan ka rajeynayaa in ay cafisaan ama waxda qalad iga tabanaysan bini aadan ahay qalad waa gali karaa inkastoo qof walaalkay ina dulmiya aan jecleen ina cafisid walaalkay ama walaashay cafi imsaamax hadii aan qalad iga tabanaysid ama aan ku xumeeyay cafi imsaamax kulli qof walaal ina xumeeyay macnaha maniideeda kuma jirto ama maankeyga welina hore uma sameyn hadana ma sameynay laakiin bini aadan ahay qofan ilaahay inuu shuway ka dhacda haddii qalalaad ama kaftan ahaata ama kaftan nooc raba ahaada iga dhacay cafi masaamax walaalkay ama walaashay qaaliye cafis ayaan ka dalbanay aniga waa ku cafiyay
haddaa i caysi iyo haddaa i xumaysi iyo haddaa i xamatibo cafi masaamax marka walaalkay qaali intaas ka sugo markaan kasoo tagna cafiska oo cafiska waa shay qaali nabigeena sal wuxuu dhahay cafiska jannada lagu maneystaa jannada ayaa lagu helaa faraj ayaa lagu helaa qalbiga kugu dagaayo ilaahay ayaa kugu jeclaanayo cafiska waa shay aad u muhiim ah waa ogtay ninka asxaabiga oo asxaabta nabigeena ayagoo la fadhi nin intuu agtooda soo maray oo nabigeena sal uu dhahay ninka jannada ayaa loogu bishaareeyey ama janna loogu bishaareeyey oo asxaab ka mid a intuu ninka gurigiisa aaday oo arkay 3 habeen la jiiftay oo marti aan rabaa inaan kuu noqdo oo ninka kalena soo dhaweey dhahay marti haddaa ii noqonay soo dhawaaw oo gurigii 3 bari la joogay oo uu dareemay uu arkay ama indhihiisa uu ku arkay qofka inuu camal zaa'id u sameyneynin ama uu maxnaa la jiri ama inta ilaahay macnaha salaadii faradka uu salaada dukunaya sunnihii uu ku dareenin maxaa la dhihi jiray oo soonkii soomaya sunnihii soonka aan ku dareenin wax ziyaada aan la imaanaynin inta ilaahay oo macnaha uu korkiisa faraj macnaha korkiisa uu ku idmo mooyaane ama korkiisa uu ku maneystay mooyaane camalkii caadiga ah mooyaane camal kale oo ziyaada aan la imaanaynin markuu arkay wuxuu dhahay walaalow nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayaa kugu bishaareeyay jannada see adigoo nool janno lagugu bishaareeyay camal ziyaadina kaagama dareemayay markaasuu ninkii asxaabiga markuu saas ninka u jawaabay ninka u weydiiyey ninkii asxaabiga wuxuu dhahay aniga camal zaa'id ma sameeyo salaada waan dukadaa laakiin wax ziyaada ma sameeyo maxaa la jira laakiin walaalkay dadka ayaa iska cafiyaa habeenka markaa jiifanaay ayaan dadka cafiyaa waxaan dhahaa ilaahayo dadkaada waa cafiyey ummadaada waa cafiyey ana ii cafi marka saasaa laga yaabaa jannada inuu ilaahay igu siiyo marka maaya asxaabteyda qaaliga badan jannada waxyaalo badan ayaa lagu helaa cafiskaas muhiim waaye